بسم الله الرحمن الرحيم 8 نوفمبر 2020 sidaan horeba dhowr jeer u sheegnay wafdi saraakiil sare oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo horkacayay taliyaha ciidanka booliiska Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaan 25kii bishii Oktoobar 2020 ku aadnay u kurgulida ujeedo safar ujeedadiisu ahayd 3 qodob oo ahaa u kurgulida xaaladaha ammaanka deegaanada dawladda xubnaha ka dawladda federaalka qiimeynta mustawaha ciidanka booliiska dawladda goboleedyada iyo u diyaar garowga amniga sugista amniga doorashooyinka 2020 wafdiga oo taliyuhu horkacay ayaa horaantii bishii Oktoobar waxay ku tageen magaalada Baydhabo xarunta dawlad goboleedka Soomaalida Koonfur Galbeed 25kii bishii Oktoobar ayaan saas oo kale ku tagnay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Soomaalida Galmudug kadib waxaan marnay magaalooyinka Cabudwaaq Cadaado Galisoor iyo magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug 1 bishii November ayaan u gudubnay dhanka dawlad goboleedka Soomaalida Puntland waxaan saas oo kale safarkeenu sidii hore u sheegnaba ahaa oo lahaa 3 ujeedo ujeedooyinka amniga sugista amniga doorashooyinka dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo diyaar garowga goobaha loo asteeyay in doorashooyinka lagu qabto oo aanu iskaashi wanaagsan kala yeelanay dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinta amniga dawladdaas u qaabilsan maadaama taliyaha ciidanka booliiska Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu yahay gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka heer qaran 2020 marka waxaan ku tagnay dhanka Galmudug magaalooyinka loo asteeyay in doorashadu ay ka dhacdo oo kala ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug saasoo kale Puntland waxaan tagnay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal iyo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaanu ku tagnay goobihii loo asteeyay qiimeyntooda waxaanu shiraro iyo kulamo la yeelanay taliyuhu la yeeshay taliyaasha booliiska dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka dhalinyarada waxgaradka waxaana ahayd ujeedadaas in loogu kuurgalo sida loo sugi karo amniga doorashooyinka nagu soo foodlay oo iyaduna muhiimad gaar ah qaranka u leh dhanka kale waxaan u kuurgalaynay mustawaha ay marayaan booliiska dawlad goboleedyada dawladda xubnaha ka dawladda federaalka iyagana si qurux badan oo wanaagsan ayaan kala kulnay una soo qiimeynay una tagnay safarkeena ujeedadiisu maanta intaas uu ahaa saaka ayaan ka soo baxnay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ee dawlad goboleedka Soomaalida Puntland halkaas oo aeroboortka ay ku kulmeen taliyaha booliiska dawlad goboleedka Puntland iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareegaas Xijaar kulamada taliyaasha iyo sida dawladaha kale aan ku soo aragnay ujeedadiisu waxay ahayd oo kuurgelida iyo qiimeynta iyo sida loo wajihi karo qorshaha ku talagalka ah iyo qorshooyinka hortaminta oo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed heer federaal oo micnihiisu ay tahay in lagu talagalo mustawaha ay joogaan si baahidooda loo qiimeeyo booliiska dawladda xubnaha ka dawladda federaalka safarkaas qurux badan oo soo dhaweyn leh oo muhiimadiisii la gaaray ujeedadiisii ayaan ku tagnay ugana nimid Ilaahay baan ku mahadsan subxaanahu wa ta'aala wa ma santiin assalamu alaykum wa rahmatullahi